waaxda sharci bixinta dalka Koonfur Afrika ayaa bilowday inay dad badan sharciyada kala noqoto oo dalkan sharciyo magangelyo doona ku lahaa oo dalkan magangelyo ka helay 20 sano ka hor qaarkood 15 sano ka hor qaarkood 10 sano ka hor arrintan dad badan ayay ku dhacday dalka qaybo badan oo dalka ayayna ka dhacday waliba waayadii ugu dambeeyay Cape Town ay aad uga socotay uma faariska ayaa tagaysaa sharci aad xareysanaysaa weynaysaa uma faariska tagaysaa adiga waxaa lagu leeyahay cadeymo la imow ama saasaad wax u samaysa ama saasaad wax u samaysa marka hore dadka macnaha qeexitaan guud kama haysan oo dadka waxay iska eedeynayeen qolooyin ayagana dad qalata ah oo dadka iska qabsado laakiin hadda waxaa caddaatay in inta badan sharciyada qaarkood lagala noqday inta badanna lagala noqonayo dadkan ayaan baaritaan dheer kadib ayaan dad badan oo waxaan aragnay arrintaas ay ku dhacday laakiin waxaan ogaanay in xaqiiqda jirta ay tahay in dadkaanu ay soo gashay fara ah in ay baasaboorka ama dokumentiga driver dokumentiga ay ku aadeen kulana laabteen dalkii ay ka yimaadeen macnaha South Africa waxaa ka mamnuuca iyo meel badan oo caalamka ka mid ah dalkii aad ka soo orday inaad kuma aadi kartid driver dokumentiga dalka aad magangelyada weydiisatay dabcan waa ka mamnuuc marka inta badan Soomaalidu waxa way qoox yar lacag ka qaadato tigid beebina loo jaraa waxaa laga dejiyaa magaalooyinkii iyo gobolladii ay Soomaaliya ka deganayeen ayagoo awalka horena macnaha wax fiisa la'aan iskaga baxay oo dalayna ku socdeen aan loo jeedin ayaa diyaaradii qaaday ay haddana sidii maxaan ku yiraahdaa dad la soo tahriibinay inay soo rartay haddana toos airportka South Africa uga soo dejisaa qaybo badan oo magaalooyinka South Africa ka mid ah airportada caalamiga kadib dadkaanu immigration wax walba la socdaan dhaqdhaqaaqa waa la fiirinaa lala hadlima waa la iska sideynaa home affairs kale lagu qabsanaano marka inta badan waxaa caddaatay dadka aado meel ka baxsan dalkan in la og yahay khaasadan dadkii aaday dalkeedii dib ugu noqday Soomaaliya dib ugu noqday marka waxaa leeyahay taas ayaa sababtay in dad badan bilooyinkii la soo dhaafay lagala noqdo maxaan ku raadaa sharciyada oo la yiraahdo waxba imaamna qaarkood 14 bari iyo isbuuc in dalka iskaga baxaan fursad loo siiyay qaarkood loo yara qabsadee macnaha si legal ku soo cadeeyay la yiri meelaha aad aadeen iyo sababta aad u baxdeen iyo waxaad ka jiriseen intaba marka taas ayaa sabab waa in dad badan qaarkood xitaa macnaha wax la yiraahdo rejection la siiyay oo 6 bilood iyo wax ka yarba inay dalka ugu duuduuba karaan taas ayaa sabab u noqotay in dad badan lagu adkeeyo marka waxay sameeyeen haddana qolooyinkii kale oo qaraabanayo muqallasiinta la dhihi jiray ayaguna dadka inay sii qaldaanay ana hadda ku soo kala tuura lahaanay qofkii oo tigti ay saaran tahay ahayd macnaha maxaan ku yiraahdaa